صاحب dhageyso ani runtan ku sheegaa jeclow ama ha jeclaanin dadaada waxay ku dhowdahay 40 sano ama way ka badan tahay waligaa wax caafimaadkaaga wax u taraayo ma aadan suubin ama aan dhahno sanadihii u dambeeyay naftaada waa ka mashquushay hadda muraayada markaa isku fiirisid ma isku qanacsanid sanadba sanadka ka dambeeyo caafimaadkaaga hoos ayuu u sii socdaa hadda waxaa go'aansatay isbedel inaad suubisid waxaa rabtaa caafimaadkaaga inaad wax ka bedeshid waxaa rabtaa calooshan ku dhibtay inaad iska jirtid fideogan adaa lagu talagalay inta video guda galin asxaabta u jeedaan gadaasheeda waxaa ka muuqdo alaabo badan oo kala duwan adiga fideogan fiirsanayo hada protein u baahan tahay soo dalbo hada pre-workout u baahan tahay soo dalbo hada creatine u baahan tahayna soo dalbo anaga waxaan gadnaa bes alaabta suuqa ugu fiican shirkadaha suuqa ugu fiican alaabta ay soo saaraan bes ayaan gadnaa hada Yurub joogtid soo dalbo si fudud ayaa gurigaaga lagu keenaa wax walba u baahan tahay waxa ka soo dalban kartaa website-keena hada Yurub joogtid si sahlan ayay gurigaaga kugu imaanaysaa mideeda kale dib ma lahan hadii wadanka aad joogtid kalaarna ka shaqeynayso lacagta waxa iska bixin kartaa 30 bari kadib iyadoo hal shilin oo riba ah aysan ku korin okay ugu dambeystii go'aan qaadatay waxa rabtaa caafimaadkaaga inaad wax ka bedeshid calooshan ku dhibteena inaad iska jirtaa rabtaa number 1 waxa ka bilaabaysaa waxa u tagtaa dhakhtar dhiigag ha laga qaado waa ogahay waxa leedahay waa caafimaad qabaa fiiri xanuuno badan oo waxa jiro aan la ogaan karin in dhiig laga qaado ma ogiye way fiican tahay bilowga dhiigag badan inaad iska qaadid si loo ogaado gudaha waxa ka dhacayo way fiican tahay in la fiiriyo sokor inaad qabtid inay kugu soo socoto beerkaaga inuu caafimaad qabo kaliyahaaga inay caafimaad qabaan wadnahaaga inuu caafimaad qabo way fiican tahay guud ahaan in la fiiriyo gudaha jirka waxa ka dhacayo waxa kale oo muhiim ah in la fiiriyo hormoneska testosterone ninka markuu gaaro 30 sano sanadba sanadka ka dambeeyo testosteronkiisa wuxuu bilaabaa inuu hoos u dhaco qaasatan hadii aad tahay qof iska fadhiyay wuxuu raba cunaayay jimicsi waxaasna aan suubinaynin markaas waxa imaan karta xitaa testosteronkaaga waqtigaas aad fadhisay dhan inuu aad hoos ugu dhacay marka waa muhiim in la fiiriyo wali marka la fiirinayo waxa fiican in la fiiriyo labadaba total testosteronka iyo free testosteronka waxa kale oo muhiim ah qaasatan hadaad tahay qof aad u cayilan in la fiiriyo estrogenka muhiim way asigana in la fiiriyo hadaad tahay qof aad u cayilan dadka qaarkood ama ragga qaarkood markii aad u cayilan waxa kor u kaco estrogenkooda markuu aad kor ugu kaco xadkii loogu talagalay dhaafo dhibaatooyin ayuu keenaa dhibaatooyinku ninka uu keeno waxa kamid ah wuxuu sababi karaa prostate cancer talabaad waxay tahay waa khasab inaad suubisid jimicsi dhaqanka Soomaaliga ah marka la fiiriyo jimicsiga waa wax loo suubiyo faakihaysi jimicsiga faakihaysi ma ahan waa muhiim fiiri ninka ragga ah muhiim ay u tahay jimicsi inuu suubiyo ninka ragga ah markuu gaaro 40 sano hadii uusan suubin jimicsi sanadba sanadka ka dambeeyo murqihiisa way sii baaba'ayaan sanad walba waxa baaba'ayo 1% taas waxa ka sii daran markii murqahaaga sanadba sanadka ka dambeeyo 1% ee baaba'aan waxa kale oo kugu darsamaayo sanad walba 5 ilaa 10% oo faad ah taas waxa kale oo ka sii daran haddaad 40 sano jirtid wax jimicsi aadan suubin awoodaada sanadba sanadka ka dambeeyo waxaad weynaysaa 3% ilaa 5% marka waa muhiim ninka ragga ah jimicsi inuu suubiyo jimicsiga faakihaysi iyo qurux bes looma suubiyo muruqa binaadanka muhiim ayuu u yahay muruqa waa waxa wax ku qabsanayso waa waxa ku dhaqaaqayso muruqa caafimaad waay guud ahaan binaadanka caafimaadkiisa muruqa wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah markay da'da timaado 40 sano soo gaartid wuxuu bilaabaa hoos inuu u dhaco hadii aadan ka taxadirin marka waa muhiim inaad suubisid jimicsi markaan ku leeyahay jimicsi suubi macnaheedu ma ahan maalin walba gymka inaad aadid hadaa caafimaad dartiis u suubinaysid 3 mar 4 mar weegi way kugu filan tahay 3 saacadood ilaa 4 saacadood oo weegi aad jimicsato caafimaadkaaga wax weyn ayay ka ciyaaraysaa marka waa muhiim waa ogahay dad badan markay arkaan dad jimicsanayo waxay u maleeyaan dad
shaqo la'aan ay ka badatay waxaan ay suubinayaanna ay u suubinayaan faakahaysi ma ahan waxaan waa investment ay ku suubinaysid caafimaadkaaga. marka haddii da'daada ku dhowdahay 40 sano ama hada 40 sano ka weyn tahay khasab waaye jimicsi inaad suubisid haddii kale si dhaqso ah ayaa laciif ku noqonaysaa. tan saddexaad oo iyadana aad muhiimka u ah waxay tahay waa inaad cuntaa raashin markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa raashin quality leh, raashin aad ka helaysid nafaqooyinka guud oo jirkaaga u baahan yahay. ogow hadaa qashin cuntid waa xanuunsanaysaa. dad badan qurbaha joogo waxay suubiyaan hal mar uu aada qofka buufeed waxaa la dhahaa makhaayad hal mar lacag bixinaysaa waxaa rabta aa cunaysaa. laakiin raashinka meeshaas ugu gado raashin quality leh ma ahan. sanado badan markaasaa suubisid waa xanuunsanaysaa. marka waa ku ogahay lacag inaad save garaysataa rabtaa laakiin caafimaadkaagana waa muhiim. intaa is leedahay lacag save garayso xanuun ha isku ridin. firi waxaa cunaysid iyo caafimaadkaaga way isku xiran yihiin. jirkaaga raashin aan fiicneen haddaa siisid waa xanuunsanaysaa taas shaki kuma jiro. laakiin jirkaaga markaa siisid raashin fiican isla markaasna uu ka helaayo nafaqooyinku u baahan yahay wuxuu noqonaa jir caafimaad qabo hadduu ilaahay caafimaad ku siinaayo. firi waxaa la rabaa raashinkaa cunaysid inuu yahay mid aad ka helaysid protein dhammaystiran. raashinkaa cunaysid waxaa la rabaa inuu yahay mid aad ka helaysid carbohydrate fiican. waxaa kaloo la rabaa raashinkaa cunaysid inuu yahay mid aad ka helaysid fat fiican. saddexdooda nooc oo raashin waad u baahan tahay. protein waad u baahan tahay, carbohydrate waad u baahan tahay, fatna waa u baahan tahay. marka 100% waa muhiim inaad cuntid raashin quality leh. waxba uma baahnid caloric deficit iyo waxaas inaad iskalaysid. bilowga waxaa ka bilowdaa bal cun raashin kugu filan aana kaa badneen kuguna yareen isla markaasna raashinkaas aad cunaysid ha ahaado mid aad ka helaysid nafaqooyinka guud oo jirkaaga u baahan yahay. balan waaye caafimaadkaaga wax badan aa iska bedelaayo. midaada kale waxaa kaloo muhiim ah jirkaaga inuu helo fitamiinada iyo mineralska uu u baahan yahay. haddii aad awoodid waxaa suubisaa waxaa jiro dhiigag la iska qaado. dhiigagaas marka lagaa qaado waxaa la ogaanaa fitamiiniska iyo mineralska jirkaaga uu u baahan yahay ama kuwa ku yar ayaa la ogaanaa. way fiican tahay dhiigagaas haddaa awoodid inaad iska qaadid markaste intaa fitamiino iska cuni lahayd aadan ogeyn inaad u baahan tahay iyo in kale. waxaa fiican haddaa awoodid dhiigagaas inaad iska qaadid saa u isticmaashid bes fitamiinada iyo mineralska oo jirkaaga u baahan yahay. asxaabta videoga intaa ka bixin waxaan rabaa inaan idiin sheego adiga videogan fiirsanaayo haddaa rabtid coach diyaar aan ku ahay coach waan kuu noqonaa. ani markaan ku leeyahay coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan barnaamij inaan kuusoo suubiyo oo kuusoo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso. processka dhan waa kula soconaa. wax kastoo khaldamo anaa saxaayo wax walba anaa soo diyaarinayo. adiga waxaa laga rabaa suubis bes. haddii daacad kaa tahay shaqo diyaar u tahay waxaa igala soo xiriirtaa emailkan balan waaye gacno furan ayaan kugu soo dhaweynaa. asxaabta daawashada videoga ana daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa noo balan ah videoga ku xigo. balanteenu waa caafimaad iyo muruq.